qisadan waa qiso aad u macaan waxaana lagu magacaabaa hooyo Khadiija. Maxay caruurtii ay waalidka u ahayd eedo iyo habaryar ay u soo buuxsameen gurigeeda. Qisadan ayaad ku dhageysan doontaan. Nala socda bilowga ilaa iyo dhamaadka. Qof walba oo dunidani ku nool waxa uu leeyahay qiso, balse qisadani hooyo Khadiija waa mid dadka qalbigooda aad iyo aad u taabanaysa, waxayna ku reebtay tiiraanyo aan titirmaynin. Khadiijo waxay ahayd hooyo korsanaysa 4 caruur ah, hal gabar iyo 3 wiil. Aabihii ilmahaasi dhalana waa uu geeriyooday. Kadib Khadiijo waxay bilowday in ay ilmaheeda ku dadaasho waxbarashadooda, tarbiyadooda, wax walba oo ay caruur u baahan yihiin inay samayso. Isla markaasina ay soo dhiciso ama ay kasoo shaqayso qodoldurigooda wixii ay maalintaasi cuni lahaayeen oo ay u shaqo tagto. Maalin kasta aroortii hore inta ay dadka kale ay hurdayaan ayay Khadiijo soo kici jirtay sariir jilicsan oo ay ku seexan jirtay. Sariirtaasi waxay ahayd mid duugooday. Waxayna aadi jirtay suuqa. Halkaas waxay ku iibin jirtay khudaar, shaah ayay karin jirtay, rootina waa ay iibin jirtay. Dadku waa ay ka iibsan jireen. Gabaldhicii ayadoo gacmaha ka dhiidaysa ayay gurigeeda ku soo laaban jirtay. Laakiin wajigeedu wuxuu ahaa mid ay farxad ay ka muuqato. Caruurta ay dhashay waxay ku dhihi jirtay, hooyo lacag iyo hanti ma haysano, balse waxaan idin siinayaa hal shay, taasoo ah waxbarasho. Waxbarashada waa dariiqa keliya ee aad uga bixi kartaan saboolnimada. Caruurteeda taasi waxay ka qaadi jireen dhiirigelin ayay u noqon jirtay, waxbarashada ayayna kusii dadaali jireen. Caruurtu markay maqlaan kelmadahaasi waxay bilaabeen in ay sii labalaabaan dadaalkii ay horey u hayeen. Mararka qaarkood waxay arki jireen hooyadeed oo ooyeysa markii ay seegto lacagta yareed ay kirida ku bixin lahayd, balse weligeed ma aysan tusin inay isdhiibtay. Halkii ay quusan lahayd waxay caruurteeda ay ku celcelin jirtay kelmad ay ku caanbaxday oo ahayd, haddii aan maanta dhibaatoono oo aan maanta dhib maro, beri waan rayn doonaa oo rajo ayaan leeyahay in aan nolosha guul ka gaari doono. Sanado ayaa la dhaafay waxay Khadiija iyo caruurteeda sidaasi ku sugnaadaan. Caruurtii Khadiija waxay gaareen heer jaamacadeed. Jaamacaddii ayay dhammeeyeen. Mid ka mid a caruurteeda oo wiilkii weynaa ah wuxuu noqday dhakhtar. Wiilkii kale ku xigana wuxuu noqday macallin. Wiilkii yaraa ee ka yaraa wuxuu noqday programming oo nin computer ku shaqaysto oo software engineering ah. Gabadhii yareedna waxay noqotay xaafid qur'aan. Afartoodii waxay bilaabeen shaqooyin kala duwan. Oo gabadhii yareed oo caruurta ugu yareed waxay noqotay macallimad madrasad oo gabdhaha quraanka xifdisiisa oo diinta barta. Wiilkii kalena programming ayuu noqday oo shaqo ayuu bilaabay. Dhakhtar wuxuu noqday dowladda isbitaalada ka shaqeeya. Wiilkii kalena macallin ayuu noqday oo ardada dugsiga sare wax bara. Hooyo Khadiijana waxa u soo baxday inay nasato ay gurigeedii ay iska joogto. Wax yar kadib reerihii ay qaraabada ahaayeen oo ay hooyo Khadiijo habaryarta u ahayd gabdhihii iyo wiilal isku jira oo nolosha ficnaa ku jira intay dhibtoonaysay ayaa gurigeedii soo buuxdhaafiyay. Oo hooyo waxay noqotay inay hooya eed habaryar ay yiraahdaan oo mid lugaha u reexdo, mid raashinka guriga u kariso, mid walba howl kasta oo guriga ka jira ay qabato. Waxayna noqotay mid dadkii deegaanka iyo qaraabadeeda magac ku leh. Laakiin sanado ka hor waxay ahayd mid aan hadalkeeda la dhageysanin, mid la yaso, mid la daciifsado, gurigeeda aan la imaanin ayay ahayd. Marka isbedel ayaa ku yimid. Waxayna hooyo Khadiijo samaysay adkaysi iyo dhiiranaan. Taasi ayayna ku guuleysatay. Qisadeeni maanta idinkugu talagalnay intaasi ayay nooga eg tahay. Haddii aad ka heshay fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saartaan, sida qisooyinka kale aan idiin soo gudbinayna oo la socotaan, sheekadaana ay noo share garaysaan si ay dadka uga faa'iidaystaan. Leegga waa xaggeena. Mahadsanidin.